وصلى الله عليه وسلم. marka ugu horeyso mas'uuliyiinta sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin bah iyo boqor all protocol mas'uuliyiinta meesha fadhido nin walba oo protocolkiisa iyo wuxuu yahay iyo ku salaaman yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaam ilaahay baa mahad iska leh na soo gaarsiiyey sanad guuradii afaraad ee xilhaynta koonfur galbeed aan madaxweynaha ka ahaa. ilaahay baan uga mahadinayaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. ilaahaygu isoo gaarsiiyey oo munaasabadan quruxda badanna na waafajiyey. waxaan kaloo rabaa sidaas oo kale inaan inta uga mahad celiyo mas-uuliyiintan sharafta leh ee kasoo qayb gashay munaasabadan farxadda badan ka kala yimid dalka iyo dibadda gudahiisa, gobollada, steydyada, xarunta dowladda, caasimadda muqdisho iyo magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed guud ahaan ka kala yimid. intaba waxaan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka ay kasoo qayb galeen. waxay noo tahay dhiirigelin iyo farxad iyo sharaf iyo karaamo gooni ah oo aadna siiseen, waqtiga aad geliseen iyo saanta aad soo qaadeenna ajir iyo xasanaad allah inka siiyo. aad iyo aad baan ugu mahadsantihin. intaas kadib waxaa laga soo sheekeeyey oo documentary la suuyaday oo siyaasiyiin tiro badan ay ka hadleen waxqabadkii 4 sano la soo maray iyo sanadkii ugu dambeeyey, ayadoo sanad kasta sida ay tahay loo sheegayay. waxa ugu muhiimsan oo taargetka noo ahaa 4 tiir oo muhiim ah oo dowladnimada muhiim u ah inay qabsoomaana yahay. wixii noo qabsoomay ilaahay baa mahad ku leh. waxay ku qabsoomeen qalbi ficnaan, daacadnimo, howlkarnimo, midnimo iyo wadajir, ayadoo gacmaha la is haysto dadka reer koonfur galbeed, nin walbana la isu duceynayo. mas-uuliyiintii kulli iyay ku qabsoomeen. waana uga mahad celinayaa qof kasta oo reer koonfur galbeed iyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo cid kasta oo gacan ka geysatayba aad baa uga mahad celinayaa. arrimaha amniga sidaa la socotaan dalka muddo 6 iyo 10 sano ah waxaa ragaadiyey argagixiso caalami ah oo la yidhaaho shabaab oo marxalado badan soo marsiisay, dadka go-doon gelisay, argagax gelisay, dil gelisay, foolxumo badan oo qalniin leh ku samaysay, guryahooda ugu tagtay, heer ilaa la gaaro in qof kasta oo mas-uul ah uu gurigiisa baryi waayo. annagoo meesha ka ambaqaadayno tiirarka 4 ah oo priority-ga ahna oy kow ka tahay amniga, yaa waxaan samaynay dadaallo iyo isku dayo tiro badan oo ay qayb ka tahay inaan diyaarino ciidamada qalabka sida, tababaro, qalabayn, diyaarin, howlgelin iyo siday ugu diyaar garoobi lahaayeen la dagaalanka argagixisada. 4 sano oo aan shaqada wadnay waxyaalo badanna waa noo suurta galeen oo inta hadda aan sheegayo ay ka mid tahay amnigana qayb muhiima ka ahaa oo 3 gobolba ka howlgalay. inta kalena waxaan rajaynaynaa annaga oo tix raacayno dardarta iyo baaqa amni iyo la dagaalanka argagixisada
ku saabsan baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ku baaqay oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahna ay ku taageereen shacabka soomaaliyeedna ay ku garab istaageen oo loo istaagay annagoo ka ambaqaadayno inaan meeshii aan ka wadnay aan ka laba jibaarno oon horey u soconno dadaalada hadda aan wadnona aan horey usii wadno dhisidda iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee daraawiishtana lasii wado lana diyaariyo loona diyaargaroobo diyaargarow waxba ma hadleeyo waa wax ku sugaaya mar walbaba adowga hadda aan rabno inaan la tacaamulno oo noo joogo marka diyaargarowga iyo garab istaagga iyo howlwarbadhigista iyo shaqada ugu horeysa oon qabanayna inay noqoto la dagaalanka argagixisada annaga oo kaashanayna ciidamada qalabka sida iyo shacabka annaga odayaashaadan dhaqanka bulshada reer koonfur galbeedood ay garab taagan yihiin yaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho arrimaha amniga inta nooga suurta gashay inta dhimantu inaan sidaas u dhammaystirno wixii dardaaran iyo amniga iyo la dagaalanka argixisada ku saabsanna waa usoo noqon doonaa arrimaha dhaqaalaha iyo wixii ka qabsoomay iyo miisaaniyaddii iyo horumarada laga gaaray iyo maanta marxaladda la maraayo ishaa macallin ah documentariga lagu qoray waxaana rajaynaynaa tilaabo kastoo la qaado inay kasii ficnaan doonto kobaca dhaqaale ee koreyna sanadkan hadda aan joognona waa 42% yuu ahaa kobaca waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho markii loo fiiriyo isteedyada waxaan nahay isteedka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budgetka miisaaniyadda ee isteedyada ugu badan waa wax ilaahay lagu mahadiyo waxaanu maraya meel fiican waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii socon doono insha allahu horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada la yidhaahaa waa caafimaadka waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanay oo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada imsiyada hooyada iyo dhallaanka xarunteeda intaba waa inta ku qornayd gurmadka bini-aadanimada wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xoogga saarnay bay ahayd ayadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay waxaa ilaahay nagu guuleeyey sidaa arkayseen 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay ma dhammaanayso laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay 2 isbitaalo waaweyn oo xudur iyo baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay oo isbitaalo la dhex dhigay sidaasoo kale 7 xarumood oo dhallaanka iyo xarumihii MCH-ka hooyada iyo dhallaanka ahayd waxbarashada 1,670,327 arday yuu ahaa sanadkii ugu dambeeyey imtixaanka ardayda gashay 12% yuu kor usii kacay waxbarashada stateka mashaariicda tirada badan ee noo suurtagalay waa mashaariicdii inta ku aragteen hadda inkuma celinayay dibna uguma noqonayno intaa la inkugu soo bandhigay noocyadooda kala duwan ballanqaadyada hadda aan u joogno runtii mas-uuliyiintan inta joogto waxaan rabaa inaan u sheego wixii ku saabsan mandate-ka iyo 19 September ma rabo inaan waqti geliyo mana rabo inaan ka sheekeeyo mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka koonfur galbeed maalinta berita baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka qabaa
hay-adda sharci dejinta waaye shalay ayadaa go-aankan gaartay process ay u soo martay mooshin baa la keenay sharciyadaa taallo nidaamaa noo jiro dowlad baa jirto xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaallo nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaannada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama beddelaa marka waqti dheer inaan geliyay ma rabi shalay processkiina maray yay u baahan tahay maantana in la maro haddii la rabo in la iska daayo waxaan ka qabana male shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay maantana hadday keenaan raalli aan ka ahay sida dastuurka ku qoran tahay la marana waaba kasii fiican tahay xeerka iyo sharciga markii la keenayo oo baarlamaanka uu keenayo 95 xildhibaan waxaa keento 33 qof yaa mooshinka soo gudbisay waana la ansixiyey maanta waxay u baahan tahay 33 qof inay mooshin ka keento qaraarkii inay jebiyaan baarlamaanka uu aqbalo 66 qofna ay tiraaha waajibinay xeerkii maalinta la jebiyey maalinta ku xigta go-aanka baarlamaanka askare haddii ay noqon weysana dee cid kaloo samayn karto ma jirto waxyaalaha caadada noo ah oo aan aad uga xumahay oo dee naloo soo minguuriyey oo aan ognahay dadkii suubiyey inay noo soo minguuriyaan dhaqankii 2 sano doorashadii dowladda federaalka aan ku jirnay ee dadkii oppositionka ahaa ee noocyada kala duwan lahaa dad ka mid ah inay maanta mar labaad magacyadii meesha laga bixiyey dibna loogu soo celiyey annaga naloo soo celiyey oo weliba lagu faanoo la yidhaaha annagaa bixinay waana ku faa'iidnay haddana aan koonfur galbeed geyno si aan ugu faa'iidno aadan uga xumaa badbaado koonfur galbeed wax la yidhaah ma jiraan badbaadada koonfur galbeed ninka rabo koonfur galbeed shabaab baa haystee ha ka badbaadiyo furunta yuusan ka soo bixin oo baydhabo imaanaya IDPska iyo maatadan inta joogta 1,200,000 oo qofaa baydhabo joogtee ayagaa badbaado u baahane shabaabayla rabaan in laga badbaadiye shabaab inta ka soo carartay qoriga hala soo dhaca fariisanayee war banaanka u baxo shabaab ka badbaadi haddaa xil rabtid tuulada ugu horeysa markaa qabatid noo soo noqo waxaan xil haynaa dhan adaan kuu dhiibaynaaye haddaan nin ragata ma maantay yaa wixii aan hadda sheegayay oo dee processkii dowladnimada iyo doorashadii la soo galay nagu daariyey oo dheereeyey oo nacaybkaad aragtay abuuray oo dee waqtigii loogu talagalay hata aanan dhicin 1 sano iyo 5 bilood zaa'ida inay ku darsanto doorashada waxyaalaha sababay wey ninkii ka midka ahaa yaa ku faanayo wuxuu leeyahay shalay anaa keenay waa lagu faa'iiday maxaa laga faa'iiday doorashada dib bay u dhacday 10 magac baa la bixiyey midowga musharaxaan nahay badbaadaan nahay nasiibaan nahay finally doorashaa dhacday iyadoo la daaray dee maxaa soo kordhay 1 sano iyo 5 biloodna waqtigii baa kusii darsamay wixii ayaga ahaa magacyadii ayaga ahaa in intana loo soo raro intana loo keeno maashaan magaxaasu kama shaqaynayaan dadkan ayagaa dhibaataysan ayagaa xabsi ku jiro ayagaa go-doon ah maanta badbaadada ay u baahan yihiin iyo midowga ay u baahan yihiin waa la dagaalanka shabaabka iyo in argagixisadan gacan la iska siiyo garbaha la isqabsado ninkii damiir leh oo wax garanayo maanta inuu 750,000 oo qof oo qoys oo inta joogto oo tuulada ugu dhow kan ka soo baxay oo 10 kilomitir tahay uu intuu qori la soo dhex fariisto guriga uu ku soo dhex dhunto uu soo galo sarkaal hebel baan nahay kanaan nahay uu yidhaah ceeb caleeg shalayna addaynuun ay ka soo tagtay ceeb caleeg soomaalina maanta meesha ay marayso wixii ay haysatayna inay haysato wixii kalena ay hore u socoto sababta keenaysana tii hadda aan idiin sheegayo waa dalkan wuxuu u baahan yahay shabaab in laga badbaadiyo ninkii intaas wax ka badan wato sharciyadda iyo nidaamka
iyo dowladnimada iyo garsoorka iyo cadaaladda aan hayno oo maamulka ah dadkan dhexdiisa laguma dhex dulminaayo cid kasta oo sharci darro ku dhex wadana tilaaba laga qaadaa waxaan u baahannahay oon soo dhaweyneynaa cid kasta oo wanaag ka shaqaynayso oo dib u heshiisiin wado oo dib u xoreyn wado oo nabadeyn wado oo wanaag wado cid kasta waa soo dhaweyneynaa wax kasta oo wada hadala ama nin kasta oo concern qabo oo reer koonfur galbeeda dee wuxuu rababa ha ahaado oo u baahan in la qanciyo waa aaminsanahay waa qancanaynaa waa la fariisanaynaa waa la hadlaynaa waa u sheegaynaa meesha ay ka raadinayaan kama jirto waa tilmaamaynaa weliba meeshay ka jirtaan u sheegaynaa cidnana ma dulminayn wixii intaas ka dheeraa dadka reer koonfur galbeed waxaan mar koowaad mar labaad mar saddexaad u sheegayaa horeyna u sheegay uguna baaqayaa inay ka shaqeeyaan waxaa la yidhaha geedka jinkaboodi bootilmaaha luusho malaahi war dadkii soomaaliyeed yaa habeenii maalin sheegaya dadka nala midkaa wey dadka shabaabka si la dagaal oo iska soo ceyriyey ninkii la soo ceyriyey baa annagana soo ceyrinayo maxay tahay nimaadaas iyo soomaalinimada iyo waxaan sheeganayn iyo waxaan ciidaha kula noqonayn inay gabdhaha diidaan waayo guryahooda yaraa waraa waxayda marayda caawiya ma weynaysaan ninkii adig kula midkaa waa iska soo ceyriyey ninkaan iska ceyri markaa iga ceyrisaa iisoo hoyanaysaa ina yidhaahawa maanta tuulada 5 kilomitir noo jirta intay kara mar hooyadiis hadday ku dhimatay hooyadiis ma soo fiirin kara mala markaasaa waxaana loo sheekeyna tan siyaasadda iyo intii aan sheegaan ka qabaa dadka saaxiibada ahaa inta yimid aaday u mahadsan yihiin ninka la yidhaaho saadaad si gooni aan ugu mahadcelinayaa maadaama musharaxiisa ahay uu asaga si official u sheegay musharaxa uu watay inaan ahay intaas kadib dalkan iyo wax kasta oo la qabtay iyo wax kastoon qabsoomin intaba waxay u qabsoomi waayeen wixii la qabtayna ay dhib ugu qabsoomeen waxaa waaye dhibaatada uu shabaab ugu hayo darteeda jidka noo furan waa inaan garbaha isqabsano si gobonnimo leh oo soomaalinimo leh oo waxa ay dadka soomaaliyeed suubinayaan aan u suubino aan u kacno difaaca dalkan iyo dadkaanaga haddii wixii aan haynayna aan hayn weyn horu socodka soomaalida ay suubin weysana aan suubin weyn oo annaga gadaal aan isugu soo noqono xaggee joogayna meelaan joogayna male horey aan u soconno deegaanadii aan horey u haynayna horey aan u qabanno cid kastaa diyaar noo ah taageeraa diyaar noo ah shacaba diyaar noo ah odayaashii dhaqankeena garab taagan hooyooyinkeena garab taagan wasaaradda haweenka koonfur galbeed iyo gabdhihii reer koonfur galbeed oo xilaalka hayay nooc kasta haadeen yaa ii yimid habeen hore waxay yidhaahaan waxaan diyaarinay 700 oo qof raashinkooda dadkii la siin lahaa ah yaan diyaarinay marka howlgalkii markuu bilowday yaan dhiibaynaa bay yidhaaheen marka waxaan yidhi waa mahadsantihiin hadduu bilaabanayo haddaad dhiibaysaan marka howlgalka aan dhiibayna kee waay yaa u dhiibnaa ciidamada xoogga ciidamada qalabka sida meel walba ay joogaan inta samaha jecel garashada fiican habeenii maalin difaaca u taagan dalkooda iyo dadkooda u dhimanayo hadda dhufayska ku jiro furunta joogo aada iyo aadan ugu mahadcelinayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku bogaadinaya dadaalka ay wadaan iyo sida ay dalkooda u difaacayaan inay sii laba jibaaraan horeyna usii socdaan magaaladan joogisteeda waxay noo gelaysa ma jirto inaan magaalada aan nagu wareegsan xagga aan hal tilaabo looga qaadi karin ku dhex jiristeeda waxay micnaha samaynayso male xabsi korka ka furana lagu jiraa intaas marka hanugu filnaato garashadan hadan intaas ahaato dadka reer koonfur galbeed
meel walbay joogaan nabadaa deeqdo amni baa deeqo xasilooni siyaasadeeda deeqdo horumar baa deeqo wadahadal baa deeqo isla jir baa deeqo midnimaa deeqdo waxaan intaas ahayn oo anfacaya male maanta in dadka la kala geeyo oo taariikh xun iyo waqti hore waxaan soo marnay iyo indarantawis lagu sameeyo oo masiibo aan jirin loo saadaaliyo ma deeqdo waxaan ka shaqayn doonaa hadduu ilaaha yidhaaho albaabadaanada qalbigaanaga intaba waa idiin furayey dowladnimada aan u istaagno xoreynta dalkaanaga aan u istaagno badbaadada dadkaanaga aan u istaagno horumarinta dalkaanaga aan u istaagno dadka soomaaliyeed waxay qabaan aan wax ka qabno wixii intaas aan ahayn ciddii waddana aan iska qabanno ha loo midoobo ha la iska qabto meel kaloo u dhunno male horaan u dhunnay dhunniin kaloo noo dhiman maleh manana dhumin karo intaas marka laga tago waxaan rabaa waktiga oo wakti dheera fankii xiriiriyaashii mas-uuliyiintii intaba inoo mahad celiyo kooxdii inta timid oo heesahii qiiraha badnayd noo heestay oo ur dadkii xamar ka yimid dadkii meelo kale ka yimid oo magacyada fanaaniintii kooxdihii labadii kooxeed ee baydhabo intaba aada iyo aada umahadsantihiin wariyaalkii xiriiriyaashii muxidiin xusni iyo tiimkiisii cabdicasiis maxaa cabdicasiis bandhawow kulli ragga dhan aada umahadsantihiin mas-uuliyiinta inta joogta sidaasoo kale aada umahadsantihiin odayaasha dhaqanka si goonaan kugu mahad celinayaa roolkiini baa la joogaa taladiini baa la joogaa ma aha annaga weli maana gaarin talada nagala joojiyo siduu sheegaya maraqdeerow marka hadday u baahan tahay in taladii iyo waanadii waa rabnaa ha la wado qayb ka noqda horumarka iyo horusocodka qayb ka noqda halganka qayb ka noqda dowladiska aada horena waa uga ahaydeen haddana waan kaga mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aada umahadsantihiin